xubnaha labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha iyo mas'uuliyiinta labada gole ee labada maamul ee Puntland iyo Galmudug isimada iyo aqaasha ganacsatada gabdhaha gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug gudoomiyaasha ururada haweenka ee labada maamul mas'uuliyiinta kala duwan iyo jananada saxaafadda ciidanka amniga dhammaan intaan xusay iyo intaan ka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay munaasabadan halkan aynu maanta isugu nimid magaalada Galdogob ee aynu ku furayno wajigii labaad ee shirka heshiisiinta beelaha walaalaha ee wadadega gobolkan Mudug ee ka kala tirsan labada maamul ee walaalaha ee saaxiibada ee Galmudug iyo Puntland waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa guddigii qabanqaabada waxaan bogaadinaynaa mas'uuliyiinta kala duwaneed ee Puntland ee wasiirada iyo xildhibaanada lahayd iyo howlwadeennada ee shaqooyadaas guddigu hayay la fududeynayay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa walaalaheena reer Galmudug maamul iyo odayaal iyo ismo iyo waxgarad iyo gabdho gogashan ka horeysay ee la dhigay magaalada Bandiiraley ee tan hadda aynu maanta halkan u fadhido gogoldhiga u ahay waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dhammaan qodobadii ka soo baxay gogashii koowaad ama fadhigii koowaad waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa sidii halkanba looga hadlay wejiga labaad oo halkan maanta loo fadhiyo natiijada ka soo baxda ahi inay noqoto mid guud ahaan horseeda dadaalkii nabadeed iyo shaqooyinkii lagaga shaqaynaya arrimaha nabadda gobolka ee muddada dheer soo socday inay horey ugu sii madhaxadii lahayn waxaynu wada ogsoonahay sida halkanba laga xusay dadaalka nabadeynta gobolku ma aha mid hadda soo bilowday laakiin xilliga dambe markii la fiiriyo maalinba geed ha soo harsanayo maalinba marxalad ha jidha dagaalkii ahliga markuu dhacay heshiiskii koowaad wuxuu ahaa kii 93dii mas'uuliyiintii markaa joogtay ee ku soo saxiixeen magaalada Muqdisho oo keenay xabadii ka dhacaysay magaaladan gobolkan Mudug inay joogsato oo dadkuna dib u soo degaan ayna u jeestaan mustaqbalkooda waxa kaloo ku xigay waxay ahayd dhacdooyin lala xaaltamayay ama lala macaamilayay dagaallo mararka qaarkood horseedayay kuwii ugu xumaana ay dhaceen 2015 dhamaadkiisii iyo 2016 dhamaadkiisii oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo waxaa dhinac socday dhacdooyin kale oo ka dhacayay deegaanada baadiyaha oo dadka walaalaha ee labada maamul ka kala tirsanay ay inta badan isku dilayeen xoolo la kala dhacayo ama daaq ama biyo iyo wax la xiriira waxaa runtii looga xumaadaa laba arrimood oo horey u jiray laakiin maanta laga buskooday labada arrimood waxay ahayd markii dadka xoolo dhaqatada isdilaan ama siyaalo kale ay u dhacday in dhacdooyin dhacaan in labada maamul ay la kala saftaan dadkaas dabadeedna arrintaas horseedo dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo 2015 dhamaadkeedii iyo 2016 dhamaadkeedii arrinta labaadna waxay ahayd gacanta saddexaad ee ku dhex jidhay oo dadka walaalaha shacab iyo maamulba ku kala dhex jidhay ee argagixisada ahayd ee isku garaacaysay dadkuna aysan fahamsanayn maadaama ay midab ahaan u eeg yihiin hayb ahaan la haybtirsadaan labada dhinac waxa ilaahay maadiisa maanta labadaas bay laga gudbay oo labada dawladood ee xubnaha ka dawladda federaalka ee Galmudug iyo Puntland ay si buuxda muddo dheer uga soo wada shaqaynayeen haatan u gaareen maalintii sabtida ahayd hadda la soo dhaafay ee 27 bisha inay heshiis buuxa gaaraan ee ah inay ka wada shaqeeyaan nabadda inay garab u noqdaan nabadda inay hormood iyo horseed u noqdaan nabadda in dadaalada nabadeed ee ka socda gobolku ay noqoto mid siyaasadaha laga heshiiyay ee labada maamul ay hormood u yihiin hadii lahayn waxa kale oo iyadana calaamad muhiim ah u ahayd in geedka nabadda ay labada madaxweyne ee Axmed Qorqor iyo Siciid Cabdullaahi Deni ee Galmudug iyo Puntland ay wada talaaleen 27 bishan oo ay ku talaaleen beerta ku taala village ama hotel village ee u dhow airportka Osaka ee koonfurta magaalada Gaalkacyo
waxaan rajaynaynaa sidii halkaanba laga xusay in geedkaa la talaalay uu noqdo mid loo harsado muddo dheer nabadda halkan ka jidha oo waadha haddii lahayn waxaa kaloo ilaahay mahadiisa in labada bulsho odayaal gabdho dhallinyaro culimaaudiin maamul intaba la fahmay inay gacan saddexaad inuu ku dhex jidhay oo isku keen garaacaysay aan horena loo fahamsanayn laakiin maanta la fahmay lagana wada shaqaynayo sidaynu isaga dhicin lahayn ayaga meel looga soo wada jeensan lahayn bal iska badaayana innaga isku keen diraane arrintaas waa guul la gaaray ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa inay iyada laftigooda u noqoto wax weyn oo qayb ka noqota arrimaha nabadaynta gobolka mudug waxaa xusid mudan sida halkaanba laga sheegay gogashii bandiiradley oo qayb ka ahayd dadaaladii horey u soo socday dhacdooyin muddo dhexa dhacayna lagu soo afjarayay bilow ahaan halkaana gabagabadeedii maanta loo fadhiyo inay noqoto gogol ku baahda guud ahaan gobolka waxaa halkan laga xusay inay jidhay gogol horey loo dhigay dhinaca bariga ee gobolka mudug oo aan shaqayn laakiin hadda dib u fidsan waxaan rajaynaynaa haddii lahaydmo mas-uuliyiinta gobolka ee labada maamul iyo odayaasha iyo isimada iyo guddiga nabadaynta gobolka inay hormood ka noqdaan natiijada halkan ka soo baxda haddii lahaydmo dadku ayagoo gacmaha ishaysteena dhinaca kalena tagaan haddii alayn oo ka shaqeeyaan sidii gobashaasna ku shaqayn lahayd mid guud oo gobolkao dhanna haddii lahaydma loo gaari lahaa wixii ka soo baxa gobolkana soomaali waxaynu ognahay meelay jidhaba reer mudugga ayagaa qaylo badanoo wixii yaroo dhaca waxaa la geliyaa facebookyada laakiin dadku meel walba waa isdilaysaa soomaali waxaan rajaynaynaa marka wixii halkan ka soo baxa gobolkan ee dadkan walaalaha iyo maamuladooda oo garab ugu ah oo ku garab taagani ay haddii lahaydma soomaali oo dhan gaadho soomaali oo dhan lagu heshiisiiyo dhinaca kalena sidii halkaanba mas-uuliyiin kala duwani ka custay ay u noqoto gogol xaar xaaladda soomaaliyeeda la bixin waayey oo maalinba sin dhiganaysa oo markii la is yidhaahdo maantay dhalaysaaba meel kale ka weylacanaysa inay waxaan rajaynaynaa furo u noqoto nabaddan halkan iyo kulankan halkan aynu maanta u fadhino iyo kii ka horreeyey ee sabtidii iyo jamcadii madaxweynayaasha galmudug iyo puntland iyo mas-uuliyiinta kala duwanaa ee labada maamul iyo kuwa heer federaal intaba ah ay u fadhiyeen siday u dhiraandhirin lahaayeen sidii loo xoojin lahaa nabadaynta sidii laysaga kaashan lahaa amniga sidii laysaga kaashan lahaa dhaqaalaha sidii aragti midaysan looga yeelan lahaa geedi socodka raadinta dowladnimo dhammaystiran oo ku dhisan hannaanka federaalka oo ay soomaaliya yeelato haddii lahayn mudanayaashii marwooyinka halkan fadhiya maantay intii gogasha dhigtay intii soo ajibtay ee timid inta safar ku timid ee rabtay inay qaybtan hore ka qayb gasho cuqaasha iyo waxgaradka haddii lahayd ma iyagu usii joogi doona inay dhiraandhiriyaan xalka ugu dambeeyana ka gaaraan wixii lagu soo ballamay ee ah dadka in la kala xaq siiyo aad baan u bogaadinaynaa insha allahna waxaan rajaynaynaa wejiyada ku xiga kuwaana inaynu isugu nimaadno waxaan rabaa halkan inaan ku celiyo inay labada maamul ama labada dowladood ee xubnaha ka dowladda federaalka ee galmudug iyo puntland ay ka go'an tahay haddii allayno ay ka go'an tahay waan ognahay sidii guddoomiyaha gobolka uu xusay in inta wiilashu ay qoryaha wataan duurkana wareegayaan geeluna baxsanayo isagoo naq raadinaya la kala dhacayo qof la dilayo taas waynu ognahay laakiin waxaa la rabaa in sida maanta ay siyaasad ahaan iyo waxgarad ahaan iyo dhaqan ahaan inoo ka go'an tahay ka shaqaynta nabadda inaan wiilasha qoryaha wataa aysan noqon kuwayna hogaaminaya laakiin inagu noqonna haddii lahayn waxaan haddii lahaynmo anoo ku hadlaya afka labada dowladood ee xubnaha ka dowladda federaalka soomaaliya galmudug iyo puntland idiin ballan qaadaynaa shacab ahaan inaysan dhici doonin inaad aragtaan labada maamul oo qoryo waaweyn isugu soo guranaya inay u kala heeliyaan geeljiro geel kala dhacay haddii allayno waxaan rabnaa dadkuna inay taa ka duulaan oo ku talagalaan haddii gabdhuhu ballan qaadeen inay khasnadahooda xiranayaan maamuladuna khasnadahooda xiranayaan qoryahoodana waa xaraysanayaan marka waxaa la rabaa taas inaynu ka wada shaqayno goglaha dhimanna laga shaqeeya haddii lahaydmo aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay